musharax Axmed Maxamed Islaan wuxuu helay 55 xubnood xubnihii codeeye ah. doorashadii Jubbaland ee Axmed Madoobe waxaa lagu qabtay jawi siyaasadeed oo muran badan dhaliyay toddobaadka iyo dhextaalka wararka aniguna waa Libaax Barqiye wax yar kadib aynu isku soo laabano saaxiibayaal. Kenyan baa sidan yeeli I'm not a Kenyan I'm Somali baan doorashada Jubbaland ee Axmed Madoobe waxaa lagu qabtay jawi siyaasadeed oo muran badan dhaliyay. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku dooday in dhankeeda in doorashadu aysan waafaqsanayn dastuurka iyada oo soo jeedisay in la qabto doorasho cusub oo ay qayb ka tahay dowladda dhexe ee federaalku. Axmed Madoobe oo markii saddexaad la doortay ayaa taageero ka helay dowladda shisheeye iyo maamul goboleedyada qaar. laakiin xiriirka isaga iyo federaalka u dhaxeeya ayaa si xumaaday. xiisada siyaasadeed iyo ciidamada dowladda federaalka ayaa ku sii jeeda maamulka Jubbaland waxayna ku eedeeyeen inuu ku xadgudbay heshiisyadii dhexmaray Jubbaland iyo federaalka taasoo sababtay isku dhacyo siyaasadeed. waxaa hadda la soo sheegayaa ciidamo ka socda dowladda dhexe in loo diri doono Jubbaland si loo xoojiyo ammaanka iyo soo celinta gacan ku haynta maamulka magaalada Kismaayo. faragelinta dowladda dhexe ee federaalka waxa ay ku doodayaan in maamulada federaalku aysan waafaqsanayn dastuurka iyo habka awood qaybsiga ee federaalka Soomaaliya. murankan madaxweyne Axmed Madoobe ayay kooxaha mucaaradka qaar ka mid ah siyaasiyiinta Jubbaland waxay ku eedeeyeen madaxweyne Axmed Madoobe inuu sameeyay doorasho aan loo dhanayn. inkasta oo uu Axmed Madoobe taageero ka helay dowlad goboleedyada qaar ka mid ah taasoo sii hurisay khilaafka dowladda dhexe iyo Jubbaland. haatan waxaa jira warar kale oo sheegaya in ciidamada dowladda dhexe loo adeegsan doono qorshe military oo Jubbaland lagu khasbi doono inay aqbasho siyaasadda federaalka. hase yeeshee ee dhinaca Jubbaland ayaa sheegay inay ka hor istaagayaan dowladda federaalka inay faragelin ku samayso doorashooyinkii lagu doortay madaxweyne Axmed Madoobe. halkaa haynoo joogo wararkeeni maantu inta aynu ku kulmi doono wararkan wararka xiga.